maalin axada 9kii subaxnimo waxa xorriyad qaatay dal la yiraahdo Soomaaliland waa kow okay dowladnimada waa state kaasi muxuu ahaa state kaasi waxaanu ognahay 330 xildhibaan oo baarlamaan ay lahaayeen waxa inoo qoran oo aynu haynaa inay lahaayeen prime minister iyo madaxweyne ay lahaayeen jeehay prime gurihii wasiirada waxa wasiirka Abd Xaaji Raan Cigaal madaxweynaha ka ahaa ninka loo jiro waxa Xaaji Cumar Askar oo madaxweynaha lacag inta union kala gad waxaynu haynaa inay passport lahaayeen waxaynu haynaa inay dastuur lahaayeen waxaynu haynaa inay maxkamad lahaayeen waxaynu haynaa inay lahaayeen hard currency baynu haynaa wax kastoo dowladeed ma wixii ingiriiska adii sheegi mise wax gaar ah inagu lahayn oo gaar u lahayn axmedow meel kale oo arrin su'aasha ma wixii ingiriiska sheegi mise waxaad sheegaysaa wax inagu aynu lahayn oo gaar u lahayn oo qoranay inagu marka ma waxa doonaysa inay dhulbahanti iyo warsangeli iyo isaaq intay isu yimaado wax qorqortaan baa doonaysa mise dadka xorriyadda ku siiyey markay ka tagaan dowladnimay kaaga tagaan ingiriis weyn naga tagi xorriyad baynu ka qadxuun naga tagi maxkamad baynu waayahay xorriyadda yaa ka soo qaaday ingiriiska maxaad uga jeedaa ka soo qaaday xorriyadda ma ingiriiska soconaya inuu ugu yimi Hargeysa oo yiri xor baa tihiin mise dad Soomaaliyeed baa intay London yimaadeen xorriyad ka soo qaaday dad Soomaaliyeed kama soo qaaday dad reer Soomaaliland baa ka soo qaaday okay Xaaji Ibrahim Cigaal baa hogaaminayay Soomaaliya hogaamiye laakiin reer Soomaaliland baa haya Xaaji Ibrahim Cigaal baa hogaaminayay Soomaaliya hogaamiye ka afartii nin meesh tagay afartan nin soo ya afartan nin soo garbi hawa garanay ninkii gudabirsan ninkii dhulbaantay ninkii habar jecel iyo ninkii habar walaha marka ma Soomaaliya xorriyad u qaaday mise Soomaaliland waxay u qaadeen goboladii waqooyi Soomaaliya laakiin su'aasha weydiinaya waxa weeye horta Maxamed horta dawixayna murmeen fadhi ku dirir marne waxa ku weydiiyay nimankaas markay Ingiriiska warqada ka soo qorayeen dal Soomaaliya ma buuxin koonfuriyo wayna mu jirin Xaaji Ibrahim Cigaal listen horta maqal Soomaaliya iyo koonfuriyo waqooyi ma buuxin dal Soomaaliland baa laga wada hadlay waxay soo siceen Soomaaliland inay dal noqoto waxay meesha u tageen waxay u tageen inay gobolada waqooyi Ingiriiska uu ka baxo waqooyi koonfur dhinaca Talyaani baa haystay baan ku leeyahay xorriyad ba may qaadan transition bay ku jireen ma bay jirin Soomaaliland baa laga wada hadlayay Ingiriis baa haystay dal madax bannaan baa timbal Ingiriisku wuxuu inagu yiri 26 juurna xorriyadina baad qaadanaysaan bowda Julayna dawladnimo Soomaaliyeed baad Soomaalida la wadaagsaan buu Ingiriisku ma jirto markaas ma jiro ilma dhalan doona aniga ilma salaana tan gabar gursado ilmahan dhalan doona hadii ibtisaam la yiraahdo inan kala uurkaygu jirtana ay noqon doonto ilwaad bay walaal noqon doona aqli ma Soomaaliland nimankii baxay Ingiriisku inagu weyn haystay warqad baynu ka soo qornay inaynu dal madax bannaan nahay baarlamaan baynu maxkamad bilnahay system xitaa ciidan military inta kaliya lahayd inaga fahmaysan waxay meesha u tageen warqad waxay ahayd Soomaaliland in Ingiriiska ka guri protectorate ah inuu dal nahay miyuuniyaanka iyo Soomaalinimada iyo kuwa la haystay iyo koonfur qoymi jir adigu dalkaaga iyo taariikhda waxaan ku hadlayo ma hortay hadar maxaan wax hadalkeeda ka baxayn waxa weeye waxaan anigu aan ku hadlaya kelmadahan anigu aan leeyahay haddaan idin cadeeyo oo idinku hadda live-ka ku jira idin cadeeyo dhagihiina maqashiyo ma ogolaanaysaan wax shir haduu yahay okay dhagihiina ku dhageysta marka 5 daqiiqo hadda ku daaraya dhageyso ay weydiina dhageyso su'aal maanta su'aal ka jawaabin way wax dhageyso waa kare war ay idaacad hay shidinde war maxal ma hadisay ma محمد هذا الكذا جيست هذا الكذا وما دقيسني هذا واحد حمر كرت ما يكون علي شرماك
وحجة رئيس ما الوزراء dhegaysanaysid miya ما dhagaysanayad 4 dowladood baa aqoonsaday Soomaaliland inta la isku biirine xageed ku maqlay iyo socodsi waaye wataas waa xageed ku maqlay yaanana konton baana khaatuma konton dowladood baa kowdii waxaan khaatuma konton dowladood baa khaatumaha aqoonsaday 1960 khaatuma seeg baa tayniyo waraga lagaxaya iyo nasku xiiqine way بليرك هذه هذه أنا بويرر بعد بقوليش هذا الصوت بيقول أحمدو يعني مور كان نجده أو نكلا ضوضو والواحد ندك وحكي بصوتك وقبله قوي ده المسؤول عنه وفرد تاسو هاي هرت هذا كم هتاي هذا كم هتاي هرت ما عايش ما عايش مراد أنا كويت حب أروح لي كويت كان نقطرني وحنا لا بنشك التكرير وحني هذا كم هتاي هذا ما عايش باكل ما عايش مية قرنا أنا كي خلطة هاي ما عايش سيان كوله الله ما عايش ما عايش عبدي بالله أوكي عبدي هاي دقيسو عبديو سؤال مش ترى وحوي عبدي هرت السوق واحد سؤال مش ترى ولا لو حوي markuu qofku wax keeno ee dood laga doodayo waxa la yaawar waxana sheegayso nin weyn baa tahay cadde hadda hadalkan ardiin daarayay wuxuu ahaa in Ibrahim Cigaal oo la wareysanayo oo leh 26 Juun baynu xorriyadeena Ingiriiska ka qaadanaynaa kooda Julayna dawladnimo Soomaaliyeed baan Ingiriiska wuxuu leeyahay xogaye wuxuu noo sheegay kooda Julay inaan walaalaheen la midoobayno oo dawladda dhisayno waxaad iga baahantiin inaad tirahdaan sug waxaad iga baahantiin inaad horta isu please horta isuga waxaad u baahantiin inaad tirahdaan hadalkii cadde oo aad diina ku dhageysataan marka war xorriyad weynu helay 26 Juun xorriyad weynu helay laakiin dawladnimo koodii Julay baynu dhisanay yaa la aqoonsaday marka 4 dowladii aqoonsaday yaa ku aqoonsaday afka ka sheegay wasabkanu gurina raale labadina raale أحمدو وركنات شنو كتير قفل بنووجي هنا حجبنا عقال هذا الكيس we know them الضوض أنا بوروك الله يجو تنك الضوض وركنا كلو ما هين arag weerar iyo qolada loo yaqaano in sheegaanta wax hal qodob baa mara halka qodob mara waxa weeye Muuse waa balaayo Muuse tiraaf buu keenay adduunyadii bayna aqoonsatay waynu dhaqaaqnay waynu cirkaynu maraynaa oo been ah dadkuna hadday been isugu sheekeeyaan demeel ma gaarayaan wax xaqiiqa laga hadlaa meeshaynu joogna aynu ka hadalna xaaladdeenu meeshay marayso iyo khataraha inagu gadaaman iyo dadkeena wixii wax u taraya aynu ka hadalayeeno beentaynu iska dayno anigu intaan doonaya waa intaa laakiin dadka hadday khiyaali ku soconayaan dee khiyaaligaa lagula shaqeeyaa adiga waa been sheeg dad baad been ku sheegaysaa wallahi been baa sheegaysaa oo billahi oo tallahi saddexdii waan mare wallahi been baa sheegaysaa war musabixi waa madaxweynahaaga niyo wallahi baan hal dal ina aqoonsan oo waqooyi aqoonsan wallahi baan ku dhaaftay Muuse waa madaxweynahaagii saacadan joogno imika wax ka bedeli kartaa yusufow nimankeedii waa tahay waxaad ku soo adaa ku siiyey ku soo waraada ninka le Axmedow nin weyn baa tahay sheegitaan cayn kan waxaan inaan waa fadhiinagada beerta reer waliba beer buu isu sheegay idinku waa beer baa isu sheegtaan laakiin waxa loo baahan yahay dood dad baa dooda ninkan arag weer wax uu ka iibiyey toobigii noo socday aan talena ka hadasheenna waad bedesheen wax kale u bedesheen marka anu dooda nimankaad ka doodaysid war Somaliland waqooyi waxa doonaysa ugu yeedhaday ku taala bacdi meeshan dood u soo noqo Axmedow si fiican u dooda oo dad ba ku dhageysanaya baasha naga adkay ma garan hadii kala beegino xabuusu noo ku dhiyaan ka shaqaysanay inaad anigu laba qodob waa ogolahay waxaan ogolahay inaan idinka tago oo aad idinku doodiina wadataan oo iska sheekaysataan ama dhageysta ama iska tago oo idinku sheekadiina wadataan waxaan kaloo ogolahay war waxa runta ah ee maanta waddankeennii ka jira innaga dadkii dad waaweyn baynu nahay waxaanaynu ka hadlaynaa waa dhulkeennii waxaynu ka hadlaynaa waa mustaqbalkeennii waxaynu ka hadlaynaa waa dad shisheeya oo aan dhulka inala lahayn turki dhulka inala male etoobiya dhulka inala male dabadabay dhulka inala male
waxaynu ka doodaynaa ku murmaynaa kala xayeysiinaynaa waa dhulkeenni iyo dadkeenni iyo mustaqbalkeenni iyo aayatiinkeenni baynu ka sheekaynaynaa oo aynu guul u aragnaa qof ajnabiyaa islaamay okay khatar badan baa anigu haddii si macquula loo hadlayo khatar badan baynu ku suganna aad u fara badan waa haddii si common sense loo hadlayo khatartaa saynu isaga difaaci lahayn iyo ciddii doonaysa inay go'do say u go'i lahayd oo dawladu noqon lahayd iyo ciddii isku soo jiraysa say isugu jiri lahayd haddii si common sense loo hadlayo waynu faalayn karnaa laakiin dee xayeysiin uma baahnin iyo muuse in maanta dhan nolo xayeysiiyo أحمد ويرسل بلا تا كو جوابي كو سو انا ده احمد دشيكي با كادو دعاي لا سعرد ما كرت بي ام كي دشيكو واحد halkan dhow dashiko ma boyne wax way dhulbaata war Muuse dhaga tiray dhulbaata dad la hadasho Muuse soo dhaga tiray Muuse awada nugula wareegaysan waa horta isku dalka marka dalkan aad leedahay Turki dalkeeni aad leedahay horta Somaliland baad ka hadlaysaa soo wax ka hadlaysaa Soomaaliya kala dal ما أنا وني الصومالي أنا وني الصومالي أنا هاي الصومالي هدو هوس دل منهين وحبينا جماعة حيان أوكي مدوا ذكرناه أنا والصومال لما كلنا ما قرأتي الله يعزك وانا قلعي كانوا في عنتها الصومالي لا أنت هناك دو وضع الصومالي دونا دو دبا كان بيقولوا madaxweyne Muuse Bixi guulaha uu soo hooyay bal isweydiinay ma guuleystay ma laga guuleystay dood noocaas ay ahayd marka isaga laftiisa ka saari mayne Axmedow madaxweynihii Soomaaliya ama Soomaali sida aaminsantahay hal Sheekh Maxamed Muuse waa ka soo adkaaday meel buu ka soo xidhay sida aragtaa guul darrada hay xaqu ka soo xidhay meesha uu ka xidhay baan garan lahaa Ethiopia oo istileen qura waddan ay hadda xasan sheekh isku dhaceen oo aan ognahay oo dhibaateeyey oo qol ku xidhay oo waddankooda gudihiisii ku bahdilay kuma bahdilay iyaga bahdilay waddan isbahdilay dee iyagu oo ninkii martida waa bahdilay anigu Ethiopia aan ogahay maya Ethiopia quraan ogahay anigu waddan kale oo hadda aan ogahay sotikini lagu bahdilay ma eedawi ما كيو وصاحب نكن كيو وصاحب كيو فرماتش يشعل هاي نكن قاتك كيو قندراس بكو هايستا كيو وصاحب لله هي أبو داري نما كان هرتي الباطنة دويني وويدي أنا أقانا إلا دودي إلا دقة هي ده والله موسى دقة هتريد أرجورو سولو ninka Soomaaliga sheegay su'aal baan weydiinaya wuxuu ku yiri imika Muuse Bixi wuxuu yiri macnaheedu nin Afrikaan salaamay baan wax ku noqonaya imika wuxuu leeyahay maxaan ku xasan sheekh bay Kenya saaxiibiin markaad inaad arwaantay markaad safiyowday bal su'aashayga jawaab maxamed baa wuxuu yiri Kenya laga soo xidhay waxaan Kenya iyo xasan sheekh waa saaxiib Soomaaliland markay salaanta Ethiopia ama Kenya salaanto macnaheedu dagaal baa la gelayaa laakiin markuu isagu xasan sheekh salaamo Kenya oo lagu bahdilay markuu tago معني هشيس بيجي نوض أوضح كشاي. السؤال سامع. سامع ولا ما هذا نوين هذا كيجا بدلين هذا كيجا بدلين. أرجوير باوحد كينيا على قصة حري. ما كان وحنا ور كينيا اعتقاد كذا حسن شيخ بقندراس كوها يستوه. ما هايستان. وحي سايستان. سوق وحي سايستان باكوري إثيوبيا. إثيوبيا وبايس ولا كمرمة. كينيا يا حسن شيخ واسكو حريمي. تعالوا أقول رأي مركي Muuse Bixi isku xidhin Kenya waa la dagaalamayaa dhibaatada laakiin yaa dagaalamay oo sheegaysa ama anaga dagaalanayno maya markii de Soomaalida loo dagaalamaya macnaheedu Soomaalida loo dagaalamaya Soomaalida adiguna garab ka raacay Soomaaliyeed baa tahay ma adigu ma Ethiopian baa tahay adigu qalbiga ku jira waa qalbiga faqashnimada wali dada la raacay laakiin wadan dhaqaaqay qofna wuxuu noqon maayo لكن هذا الكاغو ينادر هذا الكاغو أصنعه horta de warunta anigu faqash waan ahay daarood baabanahay adiguna SNM baa tahay ama Somaliland anigu SNM baan oo ogsoonay laakiin adiguna faqash baa tahay faqash baan miyaan kiraya anaba la haray magaciya faqash diiwaanige laakiin inaga saar hada bas ka soco faqash meesha ma nafarane
odayga daa macnii ciro kalan ka soo saarayna cirada ku jirta ma ciro kalan ka soo saarnaa daan waa gartay su'aal kaliya tan weydiinaya waa inuu Soomaali weeyaan laba Soomaali inta doontay weydii ma iirkada waa ku sinaya wada gabadha daa horta hay weydiisay ma xashal wallahi ana habbi ku daa hay weydiisay weydii adri weydii ma nimco ideg ilaahay ma ku dhashay maya su'aasha gabadha hadda ma istaga dibaan nagu soo noqonayna weydii adeeg ni Soomaaliya oo macnihii madaxweynaha oo dad Soomaali madaxweynaha ayaa limintu ayaa diidaysaa ni Soomaaliya oo dad kale Muuse hal qodob baan isku haysanaa wax kale Muuse laba qodob baan isku haysanaa oo kaliya wax kale isku haysanaa nimco Soomaaliland baan u garanayna ma Soomaali wada gashay ma nimco Muuse laba qodob quraan isku haysanaa adeer qodobka koowaad sug arag weero way iris sugan gabadha horta su'aasha uga jawaabay ma maqal way wasafka ku noqonay wasafka ma maqasho horta su'aashana ka jawaabay deeshu ina baad u jawaabaysaa laakiin aniga waa meesha taagan su'aal saxan uga jawaabaya su'aal si saxan uga jawaabaya gabadha la caytay maaya waa debate caadi Muuse waxaanu isku haysanaa laba qodob qodobka koowaad waxa weeye waa dilida iyo dagaalka iyo dhibaatada uu dhulbaanta ka geystay qodobka kale aanu isku haysanaa waxa weeye Soomaalinimada Muuse wax kale oo dhibaato nama dhex taalo xoolo nagama dhaxeeyaan dhibaato kale nama dhex taalo warnin Soomaaliyeed baa tahay Soomaalinimada ku soo noqo iyo dagaalka oo nala galay iyo dhibaatada dhulka iyaga iyo dadka iyaga ka geystay anaga Muuse inta dhex taalo waa inta soo kale wax kale nama dhex yaalaan Muuse Soomaali kama dhigi kartid Muuse waxaad ku haystaa Soomaaliland sanad buu dibiyay soo intaas ma Muuse waanu dagaalanay dagaalkiina wali nagamu dhamaan marka Muuse wanaagiisa qof iga sheekeeyo aan ka akhrisanaya ma jiro hadalkaaga waan meel ugu soo toosaa ama geed iyo golo la timaada Muuse waxaad ku haysataa Soomaha dhulbahantaad laysay harti Soomaali soo intaa kuma yes way soo nin daaroodnimana soo nin daaroodna afka kabaad sheegin nin daaroodabana soo inta baad lahayn daarood maxay isaa ku sameeyay ninkii adna wataadka carabtay wataad diiday adiguna dee sawtaad diiday ma hataas anna dee waa diiday adoo Soomaali oo dhan wata ayaad isaaq laysay magaalooyinkoodii dumisay Hargeysa dumisay adna la socod ba laga dumiyay tilka isku tuur hay Soomaali diiday adigu markaas markii lagu dilay Soomaali diiday me waxa isku tuur ninkii habad iyo geedi me horta adiga markii lagu dilay saad u diiday daaro baan anna dee u diiday Muuse u diiday horta maqal haddaad maanta nin ahaan lahayd hartiye oo dhulbaanta oo aad berbere iyo burcad dumin lahayd maanta waad samri lahayd haddii la sanad laga dumiyay oo lagu qixiyay laakiin daaroodnimadii kugu duuriyay oo mareexaana oo reer diiniya baa intuu adigu adeegsado ku isticmaalay daaroodnimo ba uu reesh saaq deegaankoodii dumiyay nin reesh saaq oo Sacad Muuse baa ku dumiyay ku diray Soomaa reer diini ku ilow taariikh dib u soo noqono tan waa la dumiyay tan waa la dumiyay intay ka dhimatay intii reesh saaq ka dhimatay kamay dhimanba haddaad la garayso haddaad cawaran tahay haddaad aakhirad joogto boqolaal baa jooga aakhira oo reer diini dirina mareexaana wana taa ku liqdaa nin weyn baa tahay haddii Soomaali laga hadlayna odayga Soomaaliyeed ay sheegay halku ku aasay haddii isteedii dowladnimo ka hadlaynay hadday codad ku dhacdayno la sanad u baranayso inuu Hargeysa u baranayo hatta ku soo noqonay ku dumin ilaa ay qiimaan ku dul taagnaan la sanad dhismi maysa ana kule anoo isaaq waliba isaaq oo dhan ma anoo Sacad Muuse waliga dhismi maysa kule la sanad marbood si arrin tirsameedkaaga ilaa ay tiri ku heshiiyay okay way hadda ila doodayay way marka aan kaaga jawaabay diyaar u ahaa baa kuri wariga baro ayo waan qalay hadda ila doodayay marka si way ana kaaga jawaabtaas may horta waa ki garaad ku lahayn koona lagu soo socdaa hatta ku sheegay kuma way meel kale aadine kaaga jawaabo may horta maqan hatta ku soo socdaa ku duminaya waayo anu waxaan daba socdaa
gudubtii daarood ku geliyeen soo nin daarood ma tiid mareexaan baa ku geliyey ordo mareexaan dee eerso aan kaaga jawaab marka taa kaaga jawaab dhigayso wax yar ma kelmad baan kaa oranaya horta taa wanaad fahanto gudubtiina arkaaba barnaamijkaaga waxa weeye kama baxaysid maxamed isugan kaaga jawaaba taas ma hortay maqal dad Soomaali ka hadlayso qabiil ka dhigtay laascaanadu waxay u dintay qabiilkii iyo reerkii iyo cidaad ahayd ayay laascaanadu u dintay haddana waa ku sheegaya ilaa aad saaxiga keento oo aynu soo wada fadhiisano oo aynu wada hadallo mar walba waa dumaysaa anaa kurta ku sheegay waaya anta kaaga jawaab waa tirsanaysaa waa maalmaha walla waa tirsanaysaa haye waaya sugan kaaga jawaab taas ku dhamayso laakiin wixii taariikh been kama sheegays laascaanad way duntay anaa habara waro saacad musa anaa dumiyay baan kuray anaa kula soo hortaagan ninkii reedinina isaga dumay nin mareexan nin daarooda weey tolaya daarooda baa tiri hargeysa iyo maxaan ku dhahday meel walba waa ku dagaalantay waa dumisay anna waxaan idhi tolay yaa isaaqay anaa imid anaa soo dagaalamay anaa imid anaa laascaanad kugu dumiyay cid kale godob ma raaci wani saacad musa anaa ku dumiyay baan kuray وانا كنت من وكله ارتاجنا الا انت كيس ما كبحيسا واي هذا ما كبحيسا كل ما وكنت مني وقتي قبيلك السيستم كاين انا السيستم بان استعماره انا السيستم بان اسمعش هل كاين نقدي تو تاس كما تاغنا تاريخ وين قال تاريخ بوينتيغا سارينا كا هادلو horta aad ka inta ka bixin دورتي يسوق دورتي intaada ka bixinta su'aasha kale weydiin aan ka qodob hal eray ka idhaahdo labadana iyana noqon horta suuq hadda waa problemkaagu waa inta maxamed wareede nimanka ma jeertin wax ka oohin badan ma arag nima saacad musadilay oohin badan war hadii la dilay shalay naadirka baa dilay gudubtii wada dhimatay anigu eeg hadii wararkii nin dilo waaya 1 minute hadalkays Soomaalida ku war Soomaalida waa lagu dilay adiga oo nin daarooda hal minute iga ana loo dumiyay horta aqligaaga Soomaaliya wana ka koraa way daaroodnimo ka koraa waa inaad fahantaa eeg ninka mareexaan iyo ninka wax weeye ogaadeen ee absame inuu ogaadeen absame wax weeye Itoobiya degan iyo Kenya degan nabad ku nooliyay adna wali godobtii waa soo hortag adoo godob laga tirsanayo baatri reer sheekh saaq dawlad ma noqon karaan ilaahay baa dad ku saliday habar war isaad mus oo ku dumiyay ku qixiyay imika ku soo socda mu dhiman uu taagay dhageyso waa waan ogolahay waxa sheegay soo dhaw waan ogolahay ordo Kenya ka u tag way ama hawiyo wax yar jooji maxamed wax yar jooji aan halkaas soo galay wax yar waxa ku leeyahay ما كو كان ما يسعود اي كاد هاورن كو كان ما يسو افر markaan arko afar qof markaan arko maxamedo waxa la laba group iyo laba qof markaan arko waa shakinaya waana baqaya laakiin afarta shay labada qof iyo labada group inta aanan arkaynin cid aan ka baqaya ma jirto labada group ku sheegaya groupkii ninkii ka lahaa berbera reer berbero dadku ka daba lahaa markuu furinta yimaado waa sheekadii garxaska sug kuwii ka lahaa hargeysa waynoo garowiya gawra aad ka dhex sacabinaysay markay yara yimaadaan iyo muuse markay yimaadaan furinta afartaas markay timaado waa sheekanaya laakiin ninkii hadal wax kaga qaadayo harag guriga duminayo aniga guri harag hadal laygama dumiyo muuse ha yimaado taana ha yimaado qoladii midiyaa wada taa timaado ninkii berbereka reer berberowlaana ha yimaado subaxa inoo noqoto way isagu yar jirno waa ku sinay Axmed waa kaftan weey horta waxa weey shirkadii garxayska la tag reer berberow adeeg reer berbero nayma sameynayso laakiin waxa ku sheegaya rag waaweyn been anu run baa ku sheegaya dhul bahanta wuxuu dhintay u baaba'ay deegaankiisa loo baabiyay loo qixiyay u luga beesheen deegaankiina iyo magaaladii noo burburtay waa reer diini oo wax weeye daarooda waa afweena bar baa u burburteen hadda Soomaalnimo ninkii ka carar laabaatay maanta reerka kaliya victim ku abaatin daarood run baa ku sheegay reerka xiniyeedii baa leeyahay xiniyeedii xoogeedii baa leeyahay maxaad
garaadada wadii qaxay iminkana waa ka garaadada baranayna haddaan qaxida wixii qaxiyo dhasoniga dabray ay wada dabran yihiin dhasoniga anuba ku dabray akhira ku diray ma haddana waa kugu soo socdaan ilaa barreed jeelkii un baa kuu sii diyaarinaya imow jeelkii baa kuu diyaar laaro wixii ba karaman harin haddeerna waa kugu soo garaadada waxay leeyihiin waana lagu soo socdaa haddaan ku sheegay jeelkii baa kuu diyaaray jeel baa ku sugaya iyo seeto may anu eeg rag way istilaan baan kuri laakiin hadda waxaad ogaataa stiil godobtii daaro inay adig ku fadhido tii reed inaan adig ku dilinogu inaan waxaad samayn karaysay samaysay mar haddaan ku soo qabqabtay oo wixiiba ilaa bootaankeedii xidhay iyo 10 sano ku qabay xageed ka keenay wax kale xageed ka keenaysaa 5 iyo 10 sano ku haystay maalin qura taariikh ku qormayso maalin qura one day ina cambaashay haystay 15 years baan ka diyaar anu taariikh ina cambaashay haystay ما كو اك انا كويس تاني با كويس نوح تاني با كويس كان حكومه انا كويس هذا حقو جوجا برع هرجيسه ما سو غاري waxa la hada aynaba ma iman kartaa hortay maqal anu wax way kiniinka soo qofka markuu xanuunsan kiniin looma qoro anu kiniinkii daarood baan ku qoray waad ku dhimanaysaa soo haysaa waad qaxaysaa waad arraysa hadda kulay godobtii daarood baad baatay waad u dhimanaysaa waan garaadada waxay la qaylinayaan إلى وانا لقول صوص صعدة ياك صوص صعدة ثاني أنا سيرت حركة سيرت مركوبة لنا محمد صوص سرادي وي صوص وحوي هذا اللي ما وحويين قرادي ريوبي كم صنع كراي صوص سرادي أيه وي أفكار دحرنا يا وحوي ريوبي ربعتكم صنع ورا معي هالشيء كذا يروض أو وليد ده إيه قادة سومال لماذا تاريخهم كيف تكبر؟ لا نيكلا أنا قرر نوصل ذيك هذا كويسكول على الاستين ويسكول على الاستين عشان هو يتكتو شيء يو مركا أحمد وسود كل واحد ملايين يا هذا الكلام هذا هاي موسى واحد اسمه موسى أنا واحد مودي أنا كلا نقاقدين وإذا تبي تقول صوت نقول لكن إستاذ يكون روح لكن هدي وريد مع مكة هاي هذا واحد نشوف صومال لماذا أقول صوت نقطه ده أحمد ما أنا ودوالة تايمة قرت دقيت بيسكا أنا دي شيء هذيك يا موسى ما قرأتي خاتمي سماه بايش أروح الماضي شو اللي بركو قدني قال تقال كوي حيجي أنا بيو كلا قوسنا كلا قوم ملا أنا بكم السوق يتني ودحلني هلا دي السوق صار ينا نسكوا لعب مركا وليبو قدري موسى النداء بقدري موسى النداء نقص صعود وحوي باش ورا احمد واحد مداول باش انت حاجه سوري احمد رب لا حلين قال لي laga noqdo oo la shiimaado Soomaalinimada yaa laga wada hadlay waxa doonaysid baan ka wada hadlo ama de waxaad aaminsantahay gobolkaaga waad haysataa maanta waa ku xor albaabkaaga waa ku xidhan yahay dhulkaaga cidi ma joogto in dawladda samayso dawladda ku miir qab ma garat anagana aan wareerin dawladdeedii aqoonsiga heshay Ethiopia xasan sheekh maxamuud jilbaha dhulka u dhigtay aanu ka hadalno ma garan yahay aniga baad ugu darsanaysan xisaabtii waan ogolahay inaad ugu darsano anigu horaan arag fiiri abdiyo arag weerar horaan uga dooday arintan wareede nimanka laascaanooda hareereysan baanu ka doodnay oo xabadu ku socoto horta arag weerar laascaanooda xabadu ku socoto war xabadu dhulbaato way cusub tahay baan filayay sidii uu jiray horta ninkii aan su'aashkay weydiiyay maxaa arag weerar aan wada hadalay wax yiridaa horta nidhiis wurigi baan nagu socotay anaga Soomaalidu baa suuqa aan wada hadlaynaa suuq horta maqal waxa tahay anuu nin isaa qabaan ninka gaala iyo Soomaali inta ka tagay reer galbeed aqoon soo doontayba adiguna markaan ku dilay ee ku karbaashay baatri isaaq baan iska xoriyay adeeg ma Ingiriis baan iska xoriyay waa nin hawiyeen inta u tagtay fatra aqoonsi baan ka doonay maad inta halka istaagtay tirayd ana dawlad baan doonay maxaad u dhawey od gaarada iyo هذا qoladina reer galbeedka ma isfahmi mayne waxaan ninka ilaha hadlay hadda inuu tolma habar jeclaan soo habar yoonis ninkaas aan wada in yar wada hadlaynaa suug ma horta su'aal baa ku weydiiyay hal su'aal baa ku weydiiyay
إلا منك سافهم من قلدي من قلبك فاهم معي وأكون ريرية أحمد الشيرين يسمى إير دور عليه بلاك هاي kala xiniya dheernaay kala ragnimo badan reer shakhsi caqabana waan kula dagaalamay adoo daarooda waan ku karbaashay hub iyo waxaad lahayd iyo diyaarado dhulkaan dhigay hargeysa saartay adaan ku 15 sano ku haystay waan ku soo karbaashay waan ku soo dumiyay aduu haddaad doonto maalinta arko dhigo daarood oo dhimatay waxa tiri dhul bahantaan oo hartibana khaatumaan intaada carartay iga hoos gashay wax weeye hawiye iga hoos gashay oo reer Soomaaliya oo tiri aqoonsi baa 2 sano ka raadsanay أنا أقونسي واحد كراتني الدنيا ما حد إلى تتمي ويدي ودور ويدي خاتمان اللي يراه ربحان تانو النهاي الساق يبان كسوات كارني الدنيا أنا أقصده ما ولا كريس التارك هي تبر تعملي هاي ده سؤالك قامر أنا ده سؤال أنا ده سؤالك قامر هذا مقدشو أياد قونسي كراتني أنا وين الصومالي كقامر بين الصومالي حوتشيا ربين الصومالي حوجيا لتو الصومالي أنا كو وخص بس صومالي نمر مركان كو كرباشة أياد هوية نقطة صومالي ما كمل سأي وخصبت حرية دنيك كاني كل دجالمي إنجليز كل دجالمي قال كل دجالمي بهاش بقى على وانجه ورهيب اللي يجوا نيك صومالي نمر هوية كرادني لبس صنوع اعتراف كرادني هذا صومالي مش هيك صدق لا يمكن ninka hawiiso Soomaali maaha Soomaali ma aan gaal ka doonaya anu nin Soomaali iyadoo wax aanu sheekaysan karo aan wada walaanahado anagoo sheekaysan kara anu ma aan gaal ka doonaya waxa Itoobiya ka doonaya maxaan ka doonaya oromo Kenya la joogay anu Soomaali arkayo oromo wax weydiisan maayo maya jeelku ma ka yar wanaagsanaaday jeelkii ogaadeen jeelkii dhulbaantay inaanu sameynay way imkana waanu sameynaynaa كي مريحنا وكي تشيل ما ترتين كسمة تشيل كادو حيستين لكن حتى أدو الدولة دونيسو وأنا جيرا تمايسو وده يسمينيسو وحضر الله هاي السيبانا هاي خاتمانا هاي international community شرعية عامك دولة بانا هاي يو كات سوبرس لكن ما حد سميسي 2 years يس وحوي كمل جانا بان أنا هوية كبرية هوية Soomaali كدمية هذا كرسي هيان كدرة أنا نيو حقرمي نريشق ساقما حتى بنا كيستاجي لكن أنا نبريوتما أو واللي يدريو حيدا ما كان أنا واحد سومال لا بنا الدون كنا واقع ما أنت هل كان فلانقينين أنا لبضي إذا الصراحة خاتمي Soomaalidu weydiistay waa socodsiin karaay adigu Soomaaliland ma socodsiin kartaa صدق لبض سنة بريه هوية ما ماذا أنا بريه socodsiin ya labadii sano way soconaysaa labadii sano way soconaysaa oo anu mustawiyaha aan ka doonayo waan gaarsiinayaa adigu taada Soomaali ma ka goyn kartaa oo dal ma ka dhigi kartaa that is the question waraanu Soomaali ka labadeenna aan ku wada hadlaynaa Soomaalinimada anu hadda doonayta ku daraa adigu soo karbaasha taray tan halka fadhiyo saadi karbaashada meesha ay ka cararaysaa soo ku karbaasha ada iga cararayo sidoo adigu hawiye ka daranayay abada Soomaaliya iga cararaysaa oo leedahay daarood inta wax la wadaagi lahaa Oromo wax la wadaagayay oo cabaadayay Roma miya adu ma jirtin la wadaagan shalay miyana tigrigi waraad ninkii macquulka ahaa ee WhatsApp-ka ku jiray hadalka uga war hode adu dhulbaanta horta runba ku shigay wariga Maxamed hadal badana horta aw runba ku shigay horta dhulbaanta taadu sidii isa ku dii ee ku gumeeyay jirib kamid ah ka adkaado habar jecel la yiraahdo habar warba ku timid magaaladii bay ka dumiyeen dhagaha iyo aqliga waad beeshay Soomaalida garanmaysid sharci garanmaysid qof wax yani handicap qof qaadi BM lagu qarxiyo la baabiyo wala habara wala ciilku ma qaba mar hadaan lafta nagaana ka yeersiyay irir Soomaalina ka yeersiyay wixii lagu dhiibana ka burburiyay waxaa qoys taagan tahay inta sayir way Yusuf Sudu ninka odaga waan kaftanay ku soo ani topic-geena aan ku noqonayo ku mashquul ninka beelata idinka baxaayo idinku ma isu salaxaysaa ma idinka baxaayo idinku aad dood haydin macaanaatee dooda subject baa laga hadlayay subject-kii ku soo dhawow baan ku yiri mar hore saaxiib tan local ka maalin kale ka dhiganayna soo diyaargarow maalin kale aan balano oo taa local kaanu ka hadlo laakiin waxaanu ka hadlaynay dood kale oo dad badan way noogu jiraan telefoonka wayna sugayaan
tan imika almost half an hour bay naga qaadatay wax natiijo aanba iga soo baxay nuxur aanu ma arko maxamedow oo aan ahayn waqti daaya marka waxaan ku talin lahaa inaan sabtigeeni ku noqono whatsappkana sii walaal in badan baynu sugayaan wada sugay way intaanan yusufo aanad ka bixin maxaa keenay in musabixi iyo xasan maxamed kala qaadaan haddaad aad soo koobto dhowr kelmadood aniga oo soo koobiya waxaa keenay waaqaca jira siyaasadeed iyo meeshii waxa marka laga hadlayo dawlad marka laga hadlayo la istiraynin dawlad shaqaynayso function oo controlso wadankeedii dalkeedii xilkeedii dhulkeedii badeedii Soomaaliland baa jirta imika muqdisho haddaanu nidhaahno marka wax laga hadlayo waa in runta laga sheegayo dee waaqaca sidii waaweyn aan u sheekaysano maanta Soomaali waa jinsi ma hadal markaan ka hadlayno magac Soomaaliyeed aan leenahay marka jinsigii laga hadlay jinsigii wuxuu ku nool yahay Kenya wuxuu ku nool yahay Ethiopia wuxuu ku nool yahay Djibouti way Axmed uu ka jawaabaytaa aynu waraad baan idin salaamayaa idaacadda waxa ka dhigteen fadhi ku dirire Mustafa oo ku sinay Mustafa wala leeyahay wacde waxa imika ala kulli xaal waaqi geopolitics iyo systemkii dawliga ahaa ayaa xaqiiqadii ay hortimid lagu dhaqmay xasan koodii bisha koowaad ayaa laga badiyay sidaasaan kugu daayay yaa sheekadii idaacadda waxa ka dhigteen fadhi ku dirir baa ka dhigteen war Axmed aad baan ku salaamayaa مصطفى وكان بدون ساعد أكان لك فرق إذا عطى ديك الدنيا سلام يا مصطفى ما يهدوا ما سوق اليوم لما يسمعون أكتب البرنامج كوا حنقليون ده سيدي فدي كدر كان لو دو ده ماشي دو ده كيف يسمعون ورحمي وحوي أحمد ونين أوجي وركمل كان واضح ده أحمد هذا دو دي مو قلدي هذا واحد دون سنة كلجة هذا شعره سي وقت جيسه موت وسنة سنة وقت قبض من رحمة سيا يا ورد ما سنة هذا ما هذا أنا هذا بس ما أقول هذا الوعد وحوي إيه مركا أنا هذا مركا كلنا ودي بأحمد موت ودي بإيه وكاسب ونحيتي ومنافقتي يا أنا دوري اسمه كايدرو هاي كسر مركا برنامج كنا لما سمعنا والسلام يا ابل اللي كان لقب سنه يا ku socdo yani waxa ka hadlayay ma garan maayo waxaan maqlayo waan ku dilayo waan ku karbaashiyo hadana waan ku ya saygir jidway wasaf kan dhiibiyo saygir soo wasaf waalaikum salaam alaykum way alaykum salaam soo war horta aad iyo aad baan idin salaamaya in adeer in badan baan dhegeysanayay ninka odayga ah Axmedna horta aad iyo aad baan u salaamayaa idaacadda waa ka qayb marka hore waxaan idaacadda kula talinayaa horta ninkaasi waxa weeye waa minbarada idaacadda horta ha ku faraadeegto waa qodobkaas والويد على بيدي كي بكتيرني الناس كيسي horta waa ku wadaayo waa nin aqoonyahana oo waaya araga oo weliba samir badan oo dulqaad badan oo intaasoo qof oo ay kala aragti yihiin dhegeysanaya si macquulan oo hadlaya horta arrinkaa waan hambalyeynaya marka hore waana soo dhaweynaya waa qodobkaas war isagu bay naga leeyahay war isagu bay gal leexday soo dhulbaantu dhan way soo galaan ma isagu madar soo ka hadla meesha war haayeen dhulbaantu ninkan waa nin bisil oo waxa weeye odaya oo dooda adkaysi u leh oo xamil u leh oo jawaabihiisu miisaami yihiin marka horta ninkaas idaacadda waa ka qayb isaga hal qodob baan odhanaya hal qodob idaacaddana hal baan odhanaya hal qodob baan odhanayaa waxa weeye Axmedow nin wax badan og baa tahay xaqaa'iqa iyo wixii jirta waxa fiican in la isla qiro oo la isaga garaabo oo la yiraahdo iyadoo ay sidaa tahay baanan haddana anigu ogolayn ama aan diidan ama aan ka soo horjeeday aynu ku kala jirno talan qodob yar haddaan ku noqdo midnimada iyo dawladnimadii uu ka hadlayay Axmed 60kii ereygan midnimo ayaa wuxuu ku tusayaa marka hore laba wax ama laba dawladood oo kala gaar ah oo isu yimid ayaa midnimo ereygan maxaa la mideeyay marxaad afuraya ereyga midnimo haddii aanayna laba dal ahayn ama laba dawladood ahayn maxaa lagu midoobi midnimo lama yidhaahdeen
Ethiopia miyaa la yiraahdaa midnimada Ethiopia la doonaya Jawaab miyaa la yiraahdaa maya markhaati midnimada nagu filan inaynu laba dal ahayn oo laba entity jiray ahayn oo laba qaran ahayn oo aynu axsaab gaar ah lahayn oo aynu xorriyad gaar ah qaadanay oo xuduudka uu ku horeeyay 60kii eeg xorriyaddan 60kii waxa ka horeeyay xuduudka oo dhowr iyo 50kii la sameeyay yaa loo sameynayay Somaliland baa loo sameynayay hawda reserve markii laga goynayay Somaliland baynu ahayn ciidan gaar aynu lahayn military gaar aynu lahayn police gaar aynu lahayn sharciyad baynu lahayn baarlaman baynu lahayn lacag baynu lahayn baasaboor baynu lahayn British aynu ka tirsanay idaacad baynu lahayn radio Hargeysa idaacadii ugu horeysay radio Hargeysa intaas eeg Axmed markaa horta waxaan kula talinayaa intaas oo dhammi waa xaqiiqo jirtay oo aynu lahayn waxaana wada lahaa isaaq samaroon daarood oo hartiya aynu isdiidno aynu kala tagno aynu kala dhaqaaqno waa arrin gaara laakiin xaqiiqdii jirtay iyo wixii aynu ahayn iyo dalkii aynu ahayn dal jira oo dhammaystiran baynu ahayn maxamed ibraahim cigaalna salaanta wuxuu ka qaatay 26kii June markii caalanka lagu saarayay Somaliland Scots ciidamada militariga waxyaabaha beenta laga sheegay waxa kamid ah ciidamadii markii caalanka laga saarayay ciidamadii meesha taagnaa ma Somaliland Scots bay ahayn bisa Somali Scots waxa weeye dawlad kala wareegtay xilka caalanka marka midna la saarayay midna la siibayay laba dawladood oo midna Somaliland ay tahay midna Ingiriiska tahay baa la kala wareegay su'aal baa ku weydiinaya taariikhda wada haysa weero ninka hadalka u daa horta hadhameeyo waa sheeko meel wacan ka wada hadhameeyo horta hadhameeyo daa may Axmed sidoo qanacaan doonaya waxaan doonayaa khayriyan rabaa ninkan taariikh fiican ka sheekeynaya taariikhda magaalada Hargeysa markii caalanka la kala bedelayay ma Somaliland ama Soomaaliya ciidan Somaliland baa Somali Scots loo jiray mise Somali Scots baa salaanta siinayay oo caalanka dejinayay mise Somali Scots baa mise Somali Scots ciidamadii ay Somaliland adiga weydiinaysa marka Soomaaliland weydiinaysa ada ku weydiinaya ciidamadii salaanta bixinayay Soomaaliya ka socdeen mise Somaliland ciidamadii salaanta bixinayay waxay ahaayeen Soomaali Ingiriiska bixinayay oo ciidamadii soo tababaray inagana la oran jiray Somali Scots iyo Somaliland Scots kowdi marka Axmed baan horta u dhameynay inaad ere horta waxa fiican inaynu soo garawno waxaynu ahayn dal jira oo xaqiiqo jirta oo Somaliland la yiraahdo oo 60ka ka horeeyay oo xuduudkiisu ka horeeyo axsaabtiisu ka horeyso doorashooyinkiisu ka horeeyeen aynu wada lahayn oo xisbiya lahaa waxaynu markaa oo xisbiya lahaa baarlamanka Soomaaliya ka shaqeyn jiray badna Somaliland baa laga soo doortay oo 3 buu ahaa badna xamar baa laga doortay laba baarlamaan bay isu tagay laba ciidan bay isu tagay laba booliis bay isu tagay laba asluub bay isu tagay laba prime minister bay isu tagay waxa kala ahayn Cabdullaahi Ciise iyo ninka la yiraahdo Maxamed Ibraahim Cigaal marka horta jiritaanka hore Somaliland waa mid jiray muddo 5 cisho baan u jiray innagaana dooranay oo ikhtiyaarkeena ku dooranay inaynu xamar la midowno oo markaynu xorriyadii qaadano walaalihii ku midowno taas waa qodob horta waa inaynu laakiin ikhtiyaarka sharcigu kala duwan yahay Soomaa ikhtiyaarka sharcigu jiritaankeena ka horeeyay ereyga midnimo maxaa la mideeyay midnimada union waa gaar laakiin ikhtiyaarka iyo sharcigu kala duwan yahay Soomaa horta ikhtiyaarka ba aynu ku tagnay laakiin anigu ereygan daba wax Somaliland la yiraahdaa oo jiray ma jirin Ingiriis baa iska kacay oo qabayl baynu ahayn ma ka soo anigu taadiidanay wata qabayl baynu ahayn dawlad baynu ahayn dawlad jirta oo wax walba u dhameystiran baynu ahayn midnimaduna saasay ku timi waxaana la mid
laba dal oo dokumentigeedii baa la hayaa qoraalkeedii baa la hayaa idaacadihii laga duubay baa la hayaa laba prime minister Abdullaahi Ciise Maxamed Ibrahim Cigaal ceeb maaha midnimadu waynu dooranay okay waxaan daba Axmed weydiinay horta taa inaan Axmedow aad qirto oo doodayna inuu ugu wanaagsanaato inaad qirto way fiicanta waxa kaloo taala in midnimadii ay isku garan weynay in dagaal dhacay in waqooyi dhibaato ka dhacday in heesanam dalkii gooysay inay la raali ka ahayn oo idinkuna imika dalkii qayb goosateen waa xaqiiqo tiinuna waa xaqiiqo jirta falkana waa xaqiiqo jirta marka xaqaa'iqa la isla qiro ayaa horta dee ayaa la isu keenayaa dooda hadalkii waan yara dheereeyey halkaa waxaan caddaynayaa way jirtaa laakiin maanta midnimadii baanu anagu idin horkacana haddaa leediin oo Somaliland baanu kaxaynanaa waa arrin gaara haddaa leediin Somaliland si xaq u leedahay inay goosato baan anagu idinka go'aynaana waa arrin gaara laakiin jiritaanka hore inaad laba dalo kala dhaqan oo kala dawlad oo iyo kaadi anigu soo shakhsiyan halkaa ma fadhiyo soo anu halkaa idaacadda ma haysto riyawogii soo hartima today haddii raasugana wara ka goonay waxaan aaminsanahay qofka ugu horeeya taageeraya waaniga laakiin hadday Soomaalinimo iga sheekeeyeen Soomaaliya u cararaya Soomaaliya koon soo diray isaga diriyaba ana diray laakiin hadday idan Soomaaliland baanu ka goonay anagoo Soomaaliland waanu ka goonay oo UN iyo garan wuxuu raadsanayna 33 sano way soo rafaadaan weey ona leedo lama aqoonsan karo meel kasta istaan laakiin hadday Soomaaliya loo meel anigu Soomaaliya macnaha huti arguero ninka odayga baa wax yar la hadlaya iyo dadka marka sug wax yar marka adigu arguero marka koowaad horta waa runta waxa hadalka sheegto dhan waa runta wadankeena Ingiriis baa joogay koonfurna waxa joogay Talyaani xuduudda wadankeenu way isbedeshay ilaa tiraba 4 jeer bay isbedeshay 4 jeer noo sheeg 4 jeer ba hadda ku sheegaya tii ugu dambeysay waxay ahayd 1960kii markaynu isku biiray way isbedeshay xuduud iyo xuduud hal xuduud oo dal baynu yeelanay oo dal Soomaaliya leeyahay Lubnaan iyo Syria ba isku biireen xuduud isku bedeleen topic kala furin horta la su'aal badii intaan topic kala furin waa taa inuu soo noqonay xuduud isku bedeleen ما مقل يمكن today inagoo taagan baynu Ethiopia ku beeri karnaa laakiin xuduudna isma bedelayso beeritaanku waa afar xuduud inta jeer xuduud isbedeshay baan kaaga sheekeynaa wax yar xuduud isma bedelaan xuduuda Afrika isma bedelaan way wixii lagu heshiiyay qaanuunka caalamiga wuxuu dhigaya dadkii iyagu Estonia way isku beeri karaan laakiin xuduud isma bedelaan xuduud isma bedelaan gumaysiga baan ku xuduudii gumaysiga sideedii u taala lama bedelo wariyaa musoo ninka fahmaya war waxaan hadalka sug 1941 bishii August inay hadda filayaan way isbedeshay oo waqooyi iyo koonfur labadaba waxa qabsaday Talyaani 1942 waxa la jabiyay Talyaanigu markii hore wuxuu qabsaday Ethiopia koonfurta Soomaaliya waqooyi ku darsaday waxa ka ahaa xor oo aan Talyaani xukumin NFD iyo Djibouti dalka Soomaaliya laakiin waqooyi oo dhan waxa qabsaday in Talyaani Ethiopia Talyaani baa qabsaday Eritrea Talyaani baa qabsaday xamarna Talyaani baa haystay waxa soo dhan Talyaaniga isku haystay 1942 baa mar labaad xuduudii isbedeshay appearance operation dagaal la oran jiray oo Ingiriiska iyo Australiyaanka iyo soo qaadeen oo markab aak la oran jiray uu hogaaminayay ayaa berbera ka soo degay dib baa loo jabiyay Talyaanigii xuduudii haddana way isbedesho Kismaayo iyo Boosaaso iyo Garowe iyo wixii dhan Ingiriis baa isku qabsaday xuduudii haddana way isbedeshay 1940 waxa la kontonkii oo koonfurna waxa la geliyay trusteeship waxa loo hoosgeeyay qaramada midoobay 6 wadan baa loo xil saaray 3 permanentiga oo permanent ah oo weligood isbedelayn oo ahaa Ingiriiska iyo Mareykanka iyo Faransiiska oo ah wadamadii Allied Forces ka loo jiray dagaalka ku guuleystay saddex waxa ay saddex isbedelayo Masar baa kamid ahayd
mar ciraaq baa soo geli jirtay mar wadamada latin america iyo asia fogna way soo geli jireen xuduuddu markaana way isbedeshay 1950kii go'aan waxaa lagu gaaray Soomaaliya xorriyadeeda in la siiyo 1948 Ingiriiska oo xamar xukuma ayuu Ingiriisku wuxuu ummadda Soomaaliyeed u qabtay shir Ismaaciil Naxarne la yiraahdo oo habar yoonisa baa qaybta waqooyi wixii dad joogay qaaday oo xamar geeyay gobolkan Ogaadeenaya loo yaqaano waxaa ka yimi dad Soomaalida halka deganaa waxaana waday nin la maqtal daahir koonfur iyadana saas oo kale ahayd xamar baa la isugu yimi arida waan hayaa laakiin waad bedeshay sidaan kugu sheegay adigu markaaga galo markayga ma sugaysaa waa 48 baan ku yidhi Ismaaciil Naxar baa waqooyi dadkii joogay hormuud u ahaa oo uun laaye ay shirkad wada lahaayeen oo taajir ahaa oo ganacsada ahaa okay laakiin taas la samahay taynaadeen wax yar isu bilis laakiin buugna waan sugsug buugna waanu haynaa dad odayaal oo ka sheekeynayana waa hayaa kowde marka waxaan diidaya yani inaad 1950 ka soo kacdo 1960 timaado 1957 ku noqoto aad tiraado halkan baa war eeg waxaanu ka hadlaynaa waxa weeye يعني لوحي وان كره هي وان كره اركيا ان هذا رتي كده دينار عديده waxa la yiraahdaa waxa cadeeba qofka la yiraahdaa waxana sheegayso ila waa duubaysaa waxa la yiraahdaa war nin weyn baa tahay hadalkan aad tida cadeeba la yiraahdaa qofka waxa diidaysa 1948 magaalada Muqdisho in lagu qabtay shir ummadda Soomaaliyeed oo Ingiriisku codsanayay wixii Faransiis ka soo haray inuu isagu xorriyadda gaarsiiyo talyaanina doonayay inuu isagu soo noqdo oo talyaanigii la soo celiyay oo kontonkii koonfur talyaani lagu wareejiyay oo trusteeship la geliyay oo qaramada midoobay la hoosgeeyay oo dawladda xorriyadda gaarsiinaysa ay talyaani ahayd 6 wadan na ay ka haayeen korneerayaal Soomaalidana lagu wareejiyay taladii marka laga reebo 2 wasaaradood wasaaradda arrimaha dibadda iyo wasaaradda gaashaandhigga su'aal kale arrinkaas arrinkaas waa sax sababta Ingiriisku reserve area u bixiyayna wuxuu ka xanaaqay talyaanigii la raacay Mustafa yarkaadi su'aal baa ku weydiinaya Mustafa maxaa ku dhahday waa Axmedow bal waxa la sheegtay weligee taariikhda talyaani miyuu qayb ka ahaa inuu xukumo Soomaaliland weligee taariikhda bay soo martay 8 bilood haystay mar ما يركادي لو حكى لي معاهدات كيف كان لي هشيس كيف كان لي فرقد ما ينال هشيس كي هشيس لي هي أنا هالكن بحيستا أنا لي ما جوابتي أكيد وين أحمد إنه تشرني أما وين ما دوان صوص ما شكتي وحكى لي وحوري الصومالي ودن طلياني بحيستي بيري وحكى مبامبا طلياني ميو قبصة سوالنا هرجيسو قبصة برو قبصة برو قبصة ها 8 بلود رايست قور مو قبصة إيش قور قبصة كل سجال بقى كنت أفرتني يكون إلا أفرتني يلبو وي لبي أفرتني كيف كان سوال ميت بهستي سومالي محرد بهستي ما يسوق لسن أنا هالكانوا صعدوا وين فانتان أنا تاريخ ذاك هذي وهي اسكو هي reer galbeedku intaan dagaal warada youtube ka ayay ku jirtaa ingiriiska iyo ka qaxaya berbera ma talyaanigu meesha qabsaday war arag weeraro Umar ku joog yaa dilay ninka loo jiray habar wali yaa dilay taariikhda kala hadlaan doonay Umar ku joog yaa dilay hortay maqal su'aal baa ku weydiinay yaani baa dilay horta listen hortayna Axmed dhigiso أحمدو ولبي أول أروح احترامي وحنا كارلنا وحوي أفرتنكي إن هذا صوتني شنتي تجاركي كوبا كير لباب وحي قلبيت كسكو هي ري قلبيت كسكو هيين ودمد اللي كلا قبسني تجاركي وحي طليانية مسلينية وحي هي سوق السنين وحنا كارلنا ودمد أفريقيا كبير حرية قاتين ري قلبيت كرات كارين تجاركي لباب دعي كوهشيين
in si aan Yurubiyaanku isku dilin cid walba cid gacanta ku haysa inay fasaxaan si aan Yurubiyaanku isku dilin inay fasaxaan okay Ingiriisku inagu wuxuu nagu fasaxay inuu dalnahay hayga sheekaynin reer galbeedkiisu ka dhex dilay dawladda Ismaaciilta jabtay dabeetana waxa weeye Talyaaniga ilaa carray meesha la Ethiopia ku soo jabay Soomaaliya dagaal la galay wuu ku jabay Ingiriis bed wuu ku jabay laakiin maxaa dhacay reer galbeedka shiray way fariisteen wada xuduudayna Soomaaliya intaasna waa Ingiriis bay ku abtirsanayaan intaas waxay ku abtirsanayaan Talyaani intaas Ingiriis kale taas Belgium khariirada haddaan ku soo saaro imika la ii kaadi khariirada haddaan ku soo saaro Belgium intuu joogay intuu joogay waxa weeye Jarmalku intuu joogay waxa weeye maxaa ku leeyahay Ingiriiska iyo Talyaaniga waa ku soo wadan waliba waa xor xuduudu maxay macna leedahay marka maxaad uga jeedaa waxaan uga jeedaa waxa weeye taariikhdii Yurubiyaanku isku dilayeen taariikhdii Yurubiyaanku isku dilayeen iyo waxa kala duwan war goormaynu xorriyad qaadanay wixii Ingiriiska iyo Talyaanigu isku dilayeen aan heega sheekayn meesha doonaa qabsadaan xorriyadda koobaad dalkii Soomaali ay lahaydba waxaan Soomaali laga sheekeeyaa Somaliland ba xorriyad lisii oo caan oo la yaqaan hadda afkaaga qiraysa in Somaliland lafteedu iyagu yiraahdeen Soomaali aynu raadino oo ay xamar tageen oo hebel sheegin oo Talyaani haystay oo transition ahaayeen after 5 days ba unionka Soomaali ba la sameeyay laakiin yaa sameeyay reer Somaliland ma sameeyay hadday la soo noqdeen adigu ma يرجع دين إيكر إيه سوماليلاند today هدان كسر دوانو today قراديس وي أحمد وكتشوب كسر معاك كتشوب وحب وقصص هاي qofku markuu hadalka wato hadalkii wada xusuusan karaa laakiin hadii qof intuu ka soo dhax galo isagu khudbadeeyo qofka hadalku ka kala lumaya marka aan ka yara dhex galay kelmadu ma oranaya waxa weey dagaaladii Ingiriiska iyo Talyaaniga ka dhaxeeyay xuduud la yiraahdo ay bedeleen ma jirto xuduudan waxa la sameeyay 1940 something baa la sameeyay halkan gaalkacay ahayd 1960 ilaa 1960 markii aynu xorriyadda qaadanay xadku wuxuu ahaa gaalkacyo halkaas fiisaha la iskaga dhufan jiray marka xagga kale u gudbaso moot marka eeg waxaan istildilayay xuduud may bedelin moot laakiin xadku waligii buu jiray moot ku soo inaadeer waxa inaynu wax wada samaysano oo wax wada yeelano waa topic kale hadda arag weerar qodob uu ka hadlayo oo lahaa war taariikhda iyo beeniyeen ka sheegno ma khaldi karno waan ku raacsan wixii dhacay baynu ka hadlaynaa 1941 1942 sideed bilood muddo ah oo filaya March ilaa August inay ahayd iyo August 41 iyo March 42 inay ahayd baan maray sideed bilood muddo ah wadanka waqooyi waxa xukumay Talyaani bundada meeshan la yiraahdo in ku taala in meesha laga dusay ku taala marka xiis iyo mayd loo socdo dadka laga duso isaga Axmed waa ku saxayay Talyaanigu wuxuu qabsaday koonfur waqooyi Somaliland Ethiopia iyo wadanka Eritrea maanta hore buu qabsaday leeyay ku dagaalameen waxay ku dagaalameen Ingiriis bay ku dagaalameen laakiin gormu waqooyi goortu qabsaday sheeg muxuu uga socdaa أنا واحد دوري أحمد أصحى تاريخنا يعني إيه واحد رجال بيت إسحاقين لكن فين اللي محل شيء وأنت وضع فرنسا رجال بيت كل واحد ورينا نستلين وأنا من عضنا تقال كل بعض على قصب ما يوران ما يوران ورايب من هذا تشوف إيه طريان إلا ما تجدي أحمد تصير بكسرية الصومالية متشمع الصومالية هذا شيء هو مقدسها Soomaaliya Somaliland Ingiriisku xusiye xorriyad cadaan oo leeyahay laakiin Talyaanigu ilaa maanta Soomaaliya Talyaano hal warqad oo ictiraaf kama hayaan weligood ictiraaf ma transition bay hayeen inaga u tagnay inaga xorriyad haysanay weligood meeri UN ka kursiga
inkoo taa maxkamaddii la furay adduunka haytaa kursi taana haddaad wax yar dhegaysato taana waan ku fahansiin karaado talyaanigu 42 markii la jebiyey 8 sano ka maqnaa Soomaaliya oo dhan 8 sano kadib baa si volunteer talyaanigu si isagu kuma soo noqon xoog si volunteer ayaa yu way axmed har su'aal baa ku weydiinay inaad ka jamacadii wadaysa kii hore kaaga jawaabo wadinka maxaa ka qaldan hal su'aal baa ku weydiinay si volunteer talyaaniga loogu dhiibay imkaanuu reer Somaliland baa adoo adaa Somaliland ka carray anu Somaliland waxaan haystaa warqad rasmiya oo boqoradda Ingiriisku soo qortay 32 sanayd aqoonsadeen aan dalahaa xorriyad aan qaatay ma iikadi aan xorriyad qaatay laakiin miyaad haysaa Soomaaliyada muqdisho ugu carrayso talyaaniga oo warqad u soo qoray waa naga madax banaantii warqadda lama hayo UN kan waa warqad sababta uu Muusabix warqadda ugu qoray maxkamadda adduunka oo yiri xitaa UN ka kursi ku fadhiyaan waa kaayagii hadeeg meesha sharci baa la isku hayaa ma hadal rubhaantaa tahay saaq baa tahay maxayba waxa ma waa sharciyad weey wadanka Soomaaliya loo jeedo soo talyaaniga loogama tagin waa yaan istilin reer galbeed hadaynu nahay waa reer galbeed talyaani horta meesha uu dhiibay talyaanigii extradition waa kii hooskii horta talyaaniga meesha uu dhiibay way su'aal baa ku dinay UN ku warigood ma Soomaaliya talyaaniga xorriyad Soomaaliya ma siin talyaanigu Soomaalida markii lagu heshiiyey hadalka Maxamed wax yar sug Axmed su'aal baa ku weydiinay markii dagaalkii labaad laga soo baxay wixii ay ku heshiiyeen reer galbeedku way soo wada garanayeen wadan walba wadankii uu gumaysanayay xorriyad buu siiyey Ingiriisku xorriyad buu siiyey Somaliland Faransiisku xorriyad buu siiyey 27 mise 76 waxa way Djibouti hadeeg waa Soomaali Somaliland Ingiriis xorriyad laakiin qoradan Soomaaliya Talyaaniga la yiraahdo Soomaaliya joogta miyaad haysaa warqad UN ka ah oo saxeexan oo Talyaanigu intuu warqad u qoray ay yiraahdeen Soomaaliya Talyaano waa xorriyad baanu sino waa dal madax bannaan mise waxay ku yiraahdaan Somaliland oo iyagu dal ah baanu koodii luuliyo la midownay oo adeeg kula dhuuqan su'aashaas ku weydiiyay iyagu xorriyad markaas xorriyad qaanimay ku yiraahdaan yaa u qoray meenka ma joogaan warqad ma haystaan hadeeg adaa daba socda dad aan meel ba haysan ay difaacaysa waya masuul karaysa jawaabta mise waad hadana waad soo dhaxgalaysaa okay waxaan ku yiri talyaaniga 42 markii Soomaaliya oo dhan laga saaray ee laga sifeeyay 1948 Ingiriisku isagoo xamar jooga ayuu wuxuu go'aan ku gaadhay oo UN ku go'aan ku gaadhay Soomaalida in xorriyad la siiyo koonfurtii Soomaaliya ee talyaanigu gumaysan jiray trusteeship baa loo geliyay baan ku yiri talyaani meesha ma joogo wadamadii guuleystay dagaalka ku guuleystay ee la oran jiray Allied Forces wadamada dagaalamay horta waxa la yiraahdaa ee Europe iyo America iyo Ruush markay dagaalameen midna waxa la oran jiray Axis Forces oo German baa watay midna waxa la oran jiray Allied Forces oo Mareykan baa watay jaradan way doomaysaa Axmed waxa ku weydiiyay hada weydiinayso waa ninka maxaa ka qaldan Axmed waxa ku weydiiyay talyaaniga United Nations ka keenay Soomaaliya ma taqaan ummadda reer Somaliland iyo ummadda Soomaaliyeed la mashquuliyay waxaan doonayaa su'aasha ku weydiinaysaa toos ugu dooda wad ka tagayaa fadlan Maxamed dooda idinku dawladda inaad eeg runta waa Kenya ma yarsu waa ku sinaya Kenya Ingiriiska xorriyadii way qorantay way horta yarkaadi Ingiriiska xorriyadii way qorantay Uganda Ingiriiska xorriyadii way qorantay Somaliland Ingiriiska xorriyadii way qorantay Talyaanigu soo Soomaaliya ma xukumin warqad trusteeship baa la geliyaa trusteeship bataqaana war hadday ku jiraan xorriyad ma la siiyay baan kori talyaaniga xorriyad ma siiyay ama ma yahay waa la siiyay ha waa la siiyay koodi July baa la siiyay goor ma la siiyay marka taas waa midowgii ay Soomaaliland la midowday midowga Soomaaliland haga shaqeeyay
howdii innagaa midowday wallahi aday kugu yidhaahdaan ninka xamar jooga aduu kugu yidhaahda adoo dhulbaantaa ninka waa abgal wuxuu kugu ada yidhahdaa cabdi kowdii maxamed madaxweyne ku noqday ada cabdi maxamed madaxweyne ku noqday waa kursigaagii caqligaad leedahay laakiin soomaaliya sharciyan sharci ma haysato bal weydii ku noqo kadaarod weydii kismaayo degin kadaarod maya weydii xamar ada degin ada cabdi maxamed madaxweyne ku noqday waar heedha cabdiweli gaas baanu doodnay waxaa ku yidhi maya ada cabdi maxamed madaxweyne ku noqday ada cabdi markuu madaxweynaha noqonayay yuu ka qabsaday meesha waa ninkii kursiga khiyaameye dhegeyso waxaanu anagu wada doodnay toos space ka wada doodnay cabdiweli gaas waxaanu wada doodnay ninkii loolan jiray waxa weeye yuulka loolan jiray ee mareexaan ee prime minister ka noqday waxaan ku yidhi bal soomaaliyaa tiini miyey waddanka leeda talyaanigu weligan horreyn maydi siiyey waxaan anagu ma hayno warqadaa ma hayno talyaanigu transition buu naga dhigay un ku nageeyey waa waddanka kenya ee la gumaystay ee aan waddankii gumaystay yaa geeyey trusteeshipka yaa geeyey ma talyaani baa wax geeyey trusteeship waxaa geeyey wadamadii adkaadeen ingiriis baaba haystay meeshaan ku nidhiyo warriye هلا مقص axmedow waxaad way isdabrayaan haddaad international ka say isu dabrayaan afartan iyo labadii ilaa kontonkii afartan iyo labadii axmedow ma jirto wax laydin siiyey dhegeyso wax la siiyey koonfur ma jirto eeg doodana inaynu si yaroo habboon aynu qof iskudaynaa wanaagsan waxa weeye inaad 1942gii markay ahayd ingiriiska oo dhan baa waddanka haystay koonfur iyo waqooyiba trustiiba wuxuu doonayay markaa xitaa ilaa meeshan maxaan ku rahdaa klinika shanaad ingiriiska haystay dabeeto ingiriisku wuxuu doonayey in isaga lagu wareejiyo waxaan oo dhan shanta soomaaliyeedba meel layskugu keenuu doonayey hadda dhegeyso qoladii koonfurta ayaa diidoo tiri ma doonayno ingiriiska dabeeto talyaani hanaloogu yeedhay bay yidhaahdeen oon waddankaba joogin ingiriiskuna arrinkiibuu ka xanaaqay arrinkii markuu ka xanaaqay waa kii ku wareejiyey trustiga lagu wareejiyey talyaaniga qaybtii etoobiyana cadhadiibuu etoobiyan ku daray intii kale somalilandna isagaa maamulayey marka waktigaasaa la sameeyey xadkan aynu ka hadlanee laisku haysto lama sameyn waktigaa lama samayn waktigaa lama samayne war ama wax faa'iidaysta nima yahow oo aan wax idiin faa'iideeyo oo wax iga barta ama sheekaysta idinku oo sheekada wata anigu waxaan idiin caddaynayaa 1942 xamar waxaa qabsaday ingiriis 1950kii trusteeship baa la geliyey oo talyaani baa lagu soo celiyey 1960kiina soomaalida xorriyadeeda lagu soo celiyey dhegeyso way axmedow yar dhegeyso waxaan doonayaa saddexdiina hal su'aal kaliya inaan weydiiyo nin walba sidii ilaahay kugu iga jawaab iyo taariikhda intaad ka baratay somaliland waa protectorate bay ahayd aqoonsigii gumaysigu siiyey way gacanta ku haystaa waa sharciyan haddii meel walba lala tago soomaaliya talyaanigaa gumaysanayay warqad talyaanigu u qoray yidhaahdeen soomaali talyaano waa dal naga madax bannaan meel ay adduunka kaga qoranta iyo warqada haystaan miyaa haysaan waxaan ku horreysiinayaa wasabka saa igu jira miyaad haysaa adigu ma inaadan warqadaa lama hayo warqada xorriyadda kursiga jamciyadda qurbaha ka dhaxaysa waa tii somaliland ay u saxaaxday boqorada ingiriiska taasi waa qodob oo iyadu way iska caddaanto qoladan warqadooda maan arag inagu horta kulliba laakiin inaadan arago horta waxa weeye de maareeyo idaacaddaa tahay dadkan doodaya laftooda waxa weeye dhexdhexaad baad u tahay ma garanaysaa axmed in lala doodo waa lagu filan yahay adigu horta mediation ka ahaw meesha marka hore idaacadda inta badan marka hore aad furaysana faraanqada adigaa leh marka dambana inta dadka daadiso wuxuudaba masax haddaad doonto kowdhe laakiin adigu dadkii ma qancin kartid in labadii dadkii aad isu dayso oo aad baashi adaaba ku weydiiyey haddeer miyaad haysaa laba warqadood horta markaa inaadan intaas waa horta idaacadda imika quree la daawadaa waa idaacaddaada way qaatano meel way la tagaan wana way ku soo horta dhegeyso horta raadiyo qolo maartay hadday bahashu noqoto ama aad qolo gaara la hadasho micna yeelan mayso tii liibaan baa la dhegeysan lahaa
وحكمة oo ku jirta ma jirto جو عربي horta meesha uu horta ninkan Axmed meesha uu hagaajiyay waana nin aqoon leh laakiin waxaynu ka doonaynaa marka hore wixii taariikhi jira in la isku qiro oo aanay muran noqon waliba su'aalaha isaga intoos dadku ay isu weydiiyaan adigu marka dambe dadka waxooda ma saxada doonto waxa tiraahdo waxay ku hadlayeen bawaabeen oo saacad haysto ninka waxa weydiiyay war Somaliland dal jira ma ahayd xorriyadda markii la qaatay ka hor oo xad ma lahayd oo lacag ma lahayd oo baarlamaan ma lahayd oo dawlad ma ahayd oo ma wada lahayd bal cadada inta dadka saartay mise ma jirin inta ka jawaab أحمد كتشو سوكوي هذا كتشوا هذا سوقي دحرات كسو جلسة محمد مركا هذا أنت ويديسان سوى عمل ذيك كتشوا بيا ولي بحقوق بانوا هاي تاريخ وان هيا فبراير كون يسقى بقول لحدن كي دورة شاكد عدي وقوي صدح هي صدر حبنات بع لدورتي حسبي وحكومي مايكل مريم هل عض بوهلي حسبي USB 12 بوهلي حسبي SNL 20 بوهلي صدح هي صدر كحبنات البرلمان كا ويترين واحد شري أفر هاي المركب السومال لا نص الصومالية هذا كنت هذا كمان دقيقة محمية دي إنجليز كنت محمية دي إنجليز كنتوا هايستمان كهلنا ما هذا الكاجينا فهمان دوري لحدي قبل اللي يقانو لاس حانود عرقابو بورن أحمد عندوني إنا كفهمه ورنبا سؤال أدوكو نبا سؤال شيء ويديه مسؤوليسا وكويدي لكن مريتر بالوقت هذا ايج مركو لما يستوي شيء ويدي سؤال شعرقو دم ايج انا وجدت عليه وحوي يعني ايج isaga baludaayo hadda mayo wixii as'aal weydiinayso markuu dhameeyo weydii way barkoos way sideen inta wixii ka horeeyay iyo ilaa 26 Juun waxaa dheeraad ku ahaa oo baarlamaanka la fadhiisan jiray Hindi iyo Carab iyo xoghayayaashii Ingiriiska xogayay wasaaradda waxbarashada u joogay kii caafimaadka u joogay maamulka meesha ka jiray wuxuu ahaa military administration civilian administration muu ahayn waxaa laynaga xukumay colony office xafiis loo odhan jiray oo markii dambe loo bedelay in la hoosgeeyey xafiiska arrimaha dibadda Ingiriiska waxaa la sameeyey afar mataqaanaa wasaaradood ayaa la sameeyey oo afar wasiir oo ina cigaal u yahay hogaamiye waxaa la siiyey xorriyad maxamed ibraahim cigaal baa BBC 1960 bishii May waraysatay wuxuu cadeeyey 26 Juun inaan xorriyaddeena qaadanayno isla markaana aan walaalaheen la midoobayno dawlad la dhisanayno 1 July intaas waa documented marka koonfur baa ku hadhay adoo raadiga hadalkiisu aan ka baxay koonfur baa soo hadhay koonfur Talyaaniga 1942 baa laga adkaaday Ingiriis baa wadankaas oo dhan qabsaday 43 isagoo Ingiriisku xamar jooga SYL la sameeyay groupka SYL waxaa sameeyay nin Talyaani ahaa oo muxuu ahaa yuhuud ah oo Jewish baa sameeyay si uu Ingiriiska uga soo horjeesto kalaab waxbarasho markii hore lagu magacaabay in kalaab waxbarasho laga dhigay laakiin political SYL markii dambe ilaa meel walba gaadhay baa meeshii ka soo baxday 1948 iyo 45 46 Soomaalidu waqooyi iyo koonfur meel walba waxaa ka jira dhaqdhaqaaq gobonimo doona innaga Kenya wuxuu ka soo bilowday cadan niman wasaaradda wax ku bartay cadan ayaa dhaqdhaqaaqa halganka soo bilaabay markii dambe wasaaradda waxbarashada galay okay kabacdi Ingiriisku dadka Soomaaliyeed buu isugu yeeray afartii qaybood oo xukumayay marka Djibouti laga reebo isaanadii sheegay dadka kala hogaaminayay oo soo kala kaxeeyay NFD iyo mataqaana ogaadeen dhulka loo yaqaano iyo waqooyi iyo xamar waxay dadkii SYL ahaa ee uu ninka yuhuudkii sameeyay
ee macallimiinta u ahaa ay ku guulaysteen inay codsadaan talyaaniga dib loogu soo celiyo lambar labo dagaalkii labada adduunku markuu dhammaaday 1940 وي تاسوا هوية نعيب وي إسرائيل هوية هجابينيسي تاسوا ده أحمد أبوري واحد كسعطها وارهن واحد وتاريخ معه إسرائيل أضاد عيل ده هوية وقبض ناوي ومركي أفراد عن كلها هاي فيري ومركي أفراد عن كلها هاي وروحان كوها يا عديد يعني أنا إرجع تدينا واحد عديد كمان بحضو يعني إسرائيل وعيو مركي إسرائيل ما تشرتين بك كتير أنت كلوا هوية دروي إسرائيل قال لك دقو هذا قال حرين الصومالي ما تقال حرين لا إسرائيل نك سمي إسرائيل نك اللي في مسكح هذا اللي في كلامك وحكي لي شيء ما تقامه هذا قال لك وش يجي ما أحمد ده كلامي يا سمي يبغى اللي في واحد مسكح هذا اللي في أو إسقارنا يعني إنجليز كاسمه تشنكرين واحد waxa qofka cadeeba la yiraahdaa bilis qofka waxa uu ku hadlayo Soomaaliya gaaraya hayd Soomaaliland atrado darwiish baan ka hayo ana gaara ka xoreeyay aduma marka kali islaam baatay marka yani eeg waxaan historygeena been ka sheegin Israel baad maagaysa Israel adu daarood baad ka tahay Israel waxa ku jiray barawaaniin baa ku jiray saxaawadiin yuha تبى أدو هذا قيل كذي هذا ما هذا إسرائيل نقطة إسرائيل تاريخ دي هذا دورس أو سخاودية مدربوا على صدارات مساوية هذا دورس إسرائيل أحمد مر ملها شوف أرض سخاودية لبا المس سخاودينا كتير ما هرتي مقن أنا هيقعد دقين إسرائيل هيقعد دقين دت وحوي دت كوريد قارنا قالها كدقين قارنا إسلام كدقين أنا إسرائيل قالها يا كومورا لين كألي في باكوري لين تلياني تشوي شبوها ما هرتي فن أما تشوي أما يهود بكو شيء هداد أدو تانيكي دارودنا وحوي إسلام كي كانوا تشويش نمر ليرة وحوض برتي لغة تلياني كوها اللي يبيعي لكن كمير هين تاريخ كمير هين حريتي هذا تاريخ ليه وقوة طليان وقوة تاريخ كويبا شيء dalkii iyagu ka soo jeedeen bay warqad uga saxiix lahaayeen oran lahayn anagu Soomaali tayaaran nahay hadalku ma ku soo waday hadalkii baa suugi karin ma horto bay ogiyana kumar meel meel iskeenay ku wurwigi intee dal ba wax weey wadanka Talyaanigu ay xukumay soo Libiya soo halkan ma aha wax weey soo Libiya tan ma Talyaaniga haystay warqad wallahi Libiya ku aqoonsaday Libiya حاجة لغو هيا وكي أقصد ورقد والله هي حاجة لغو هيا أنا كنت سيس تعرف الليبيا متغان تعرف الليبيا متغان أحمد ساقوش أحمد ساقوش أنا كنت سيا ليبيا حريد ليبيا تاريخ ولا متغان أرض طلياني سيي طلياني أوسع ما سينو طلياني سي مثلا مركي لا تشبيه طلياني مركي لا تشبيه مسلمين لا تشبيه لكن يوينك مركي لا تغيا او صحيحay طليانيga oo saxay Ethiopia dalka leeyahay waxa weeye Libiya inay diriyeen dal madax banaan yaa haystay Italy baa haystay hatta markii sheekhi weynaa la diri jiray wadawi markii Mussolini la jabiyay Talyaaniga waa laga saaray Libiya ولا قصر لكن ستيت كي أي هيستي يا مرت حرية سي طلياني بسي طلياني بحرية سي ما يتكلاس يا أصحي يوينك طلياني بأصحي إمكن هذا قش كده مرة قارا كده اسمه يهود كده جيسو وحوي حدي طلياني سومالي سمو حكم جل محمد وهذا الكي كل بيانو مالينا يا هذا السؤال بقى ويديني Soomaalida ka soo qaadso war hadalkayga ku dhibaye Soomaali kale nigada Soomaalida soo Ethiopia wadanka leeyahay wax weey Djibouti nuguma dhawa Faransiis baa xukumay uu saxay in dal madax banaan yihiin Somaliland Ingiriis baa haystay way u saxay in dal madax banaan yihiin dasan keer wadanka la midoobi
ما إيه وده كل مدوبين هذا سكر بالنمو وقر يلا خساري يلا وكل تجي مريرة هذا سكر وحنو كان لنا تذكي ماشي قبصري جبوتي فرانسيسكو وافصح طلياني ليبيا وافصح إنجليزكو سومالي وافصح هتاك طلياني سومالي ما وافصح نو إلا حتى نفصح معكم marka ترى gumaysiba marka hadda gumaysiba ku jira إلا حتى واتر إلا حتى كجرا وعي قميسي hadda إلا حتى ay باللوكل بدرا أول يراهدا أمي سنبان كوكيننا يونو سنبان كوكيننا محيبان كوكين حتى marka إذا كل شيء marka فكري اللجيني marka talyaaniga baa haysta talyaaniga baa xamar haysta hadda إلا حتى هيستا صوماليا طليانو ميل أو قرا يوينكا وقد وكفصاي ما بجرتبا ما نسويري كرو marka واسبتها مصاب ميل بو marka كرباشي marka lixdankii marka lixdamaadkii iyo toddobaatanaadkii iyo siddeetanaadkii iyo sagaashanaadkii waxba talyaani bayna haystay طليان ما هيسنا وحيستا صومالي وحيستا ما كوري ضد عقل damee toddobaatanaadkii hargeysa markii talyaani baa xukumay ديبو هيستا صومالي ما كوري إلا دالكاس حر نقضو ودنكي قميساني وصوص صحيحو تين من قولر yaa لوقينا عقلي قال الله waayo هاي صومالي taariikhda wad waaye noo wad waaye noo wad waaye markaa su'aal baan ku weydiinaya waxaad iga warantaa qolooyinkii deganaa Ethiopia waaga maxaan ku lahaa gumaysiga iyagu ogaadeen ku Soomaaliya oo dhan xabashidahana loogu dhiibo annagana lagu daro xabashida mada ma jirto miyaa taas ma jirto waddankeena saddex jeer baa la dhiibay 1886 dagaalkii mahadiga ingiriisku ka codsaday inuu ka caawiyo boqorkii xabashidu ilaa harar baa la dhiibay dagaalkii daraawiishta waxaa la dhiibay ilaa jigjiga si uga caawiyo etoobiyaanku dagaalkii hadda aynu ka sheekeynaynay ee lagaga saarayay talyaaniga berbere iyo burco iyo hargeysa ee appearance operation markii ay ku guulaysteen ee boqorkii Haile Selassie laga soo celiyay London na waxaa la dhiibay Ogaden reserve area ayaa loo dhiibay xabashida marka mar walba waxay ku taariikhda Axmedow dib ugu noqo ogaadeen ku iyaga ku yiri xabashidahana loogu dhiibo mid kalena aan ku sheego Abdullaahi Yusuf isagu ahaa ninkii Ethiopian oo cadowgeena soo galiyay wadankii Soomaaliya la oran jiray balaada dhageyso imkana midnimaad ku doodaysaa waxa leeyahay midnimo Soomaali baan raadinayaa balaada dhageyso Ethiopiana idinka ku biiray xabashina idinka wadanka soo galiyay maantana waxaad ka sheekeynaysaa midnimo moogta ما يركادي مصطفى waxaan doonaya waxaanu ka hadlaa marka maxaa doonay Mustafa maxaa doonay marka waaye waxaan doonaya ku sheego midnimada sheegaysaa wax jira ma aha in adeer moogta marka ma Ethiopia ku wada dhexdhacaa ma Ethiopia adigaaba gacantaada ku baabiyay midnimadana aad ka hadlayso moogta Mustafa laba arrimood labadaba waa ku ogolahay ma garatay waxaan ku ogolahay adiga oo isaaqa is ogol ee doonaysa inay dalaya Somaliland dhisato in iyagoo xor ah oo aan Ethiopia haysan oo aan cid kale haysan ay dhulkooda xor u qaataan habi baan ku ahay waxaan kaloo habi ku ahay in idinkoo Soomaaliya aad Soomaalidina ka mid noqotaan haddaydan Soomaali rabin waradaan Ethiopia isu dhiibin Soomaalida ma adaa baabiyaan ku leeyahay wax Soomaalida la yiraahdaa ma jirto adaa baabiyay adigu waaya aadan ka hadlayo adigu haddaad doonayso inaad adigu hays dhiibin adigu kaaga xor soo xor ku ah anigu ismaba dhiibaye laakiin anigu waxaad iga daysaa kelmadan Soomaalidiid adiga ah adaana baabiyay Soomaalinimadii way hal ugu jooga way wixii qalad aan leeyahay waa qiranaya adigu kaaga qiro noqonaya way raalli hada labadii raalli hada way wasabka igu noqday way labadooda way isku muuqdeen hadii la daba Mustafa iyo Axmed oo isku muuqdeen su'aal baa ku weydiiyay waxaan anigu waqti dambe hadda inoo baraysay waxay tahay deerto saddexdii aroornimo ku socotaa way ka tagaya way wad ma santay way Axmed wad ma santay idinka mudan anigu halkan yani ana aqoonteeda ay baraysa
waxaan ogahay baan ogahay wax badan baan halka ka sheegaa waxaan ka hadlay waxa weeye Kenya warqad bay la taagay Greece baa gumaysanayay protectorate bay ahayn warqadii ay aqoonsi u qaatay halkaas oo taala UN-ka Somaliland warqadeedu waa haystaa miyaa haysan warqad Soomaali Talyaano ku qoray oo dal ila Talyaani baa gumaysanayay miyaa haysan warqad UN-ka taala oo wax weeye Talyaaniga Soomaali Talyaano Soomaaliya oo meel Allah meel Talyaani ku fasaxay Soomaali miyaa haysan ku socdo wasab taasi ma jirto maye haba yaraatee waraaq ay qaateen Mustafa waan kusoo noqonay kusoo warni horta arinka caawada waxa ka hadlayay cali waran cad oo wax waraaq oo nimankaasi ay qaateen ma jirto warqadii inaga ay boqorada Ingiriisku inoo saxeexday ee xorriyadda inagu siisay 1926 June ayuunba kursiga qaramada midoobeyna lagu fadhiyaa oo qaramada midoobey taala taasi waa arrin iska cad laakiin inaad waxa weeye horta imika Axmed caawo dhan doodii weli kama hayno Somaliland way jirtay ma jirin ilaa baarlamaankiiba soo taxay wuxuu soo taxay wixii la doortay wixii waxa weeye qofka horta wax garaa wanaagsan oo Somaliland dal jiray ahayd sharci xorriyad haysatay waa la ictiraafay shanta wasiir uu sheegayo afarta wasiir dhulbaanta ku jiray inagaalba madaxdu ahaa marka horta ninka marka hadaanan islaba qiraynin war Somaliland ma jirtay hore ma waxaanu ka hadlay waa legality baynu ka hadlaynaa ee ku soo dhawow arrinta war wadan wal og East Africaanka wadankii gumaystay waa la yaqaan wadan wariyo maalin buxro Somaliland markay horowday iyadu waxay waa haysataa sharci laakiin Soomaalida lagaga shakeeyay ilaa Soomaali laga hadlay maayo Soomaali waa wadamada kala duwan bay degantahay Soomaali ma haysataa warqad rasmiya oo wadankii gumaystay ee xorriyad ku siiyay mise transition bay ahayd si imika u yihiin ma dawladnimadii ina cigaalo ku dhawaaqay oo kaga dhawaaqay London warqadii la soo siiyay ayuunba wala midoobay ee bal ku socdo baalkiyaan way Mustafa inuu dhiibin aqoonyahanka waraaqda even uu ka hadl taa aynu qaadanay 1960 markuu ina cigaal ka hadlayay xornimada inaan qaadano 26 June meel allaale meel uu ku yiri waxaan ku midoowanaa Soomaaliya ma jirto ina cigaal markaa wuxuu sheegay in 26 June hadeen nahay Somaliland in xornimadii qaadano koonfur meel allaale meel ay ku qaadatay xornimo amba waraaq la siiyay amba aqoonsi la siiyay in dawladii Talyaaniga ay ka baxeen ay hoos tagayeen taanu taariikhda kuma hayo moorto way alba labadin markaad weydiinay ku soo gudbinay wadamadu Soomaalidu way hadal badan waa oral society waxa doona bashay say doona baa lagu dhigay laakiin marka state laga hadlayo oo wax la barto aqoon gaar ah kama hadli karaan dadka grassroots kama hadli karaan grassroots waa la garanaysa ma fili wadadka day hasta maatida meesha degan waa Somaliland hadda ganaadaan ama Somaliland hadda ganaadaan doesn't make sense laakiin marka sharciyada laga hadlayo grassroots ka soo qaadan mayno laakiin wixii legality ee sharciyana as a state Somaliland waa ay hadii lagu weydiiyo marka waxa la soo boodisay Somaliland waqtigaas xorriyada qaadatay protectorate bay ahayd waa taas warqadii baad la soo boodisay laakiin ninka isagoo Soomaaliya sheeganaya inta ku soo garab istaaga ma oranaya anuu Soomaaliya ahay warqadii waa taa Talyaani bay gumaysanay xor bar kulligii ma aragtay Mustafa ku horeeyay